dowladda Soomaaliya ayaa dalalka beesha caalamka ee deeq-bixiyaasha ku gacan saydhay qorshe ay u soo jeediyeen oo nuxurkiisu ahaa in la cusboonaysiiyo habka macmiilka gaarka ah ee loo qoondeeyay in Somaliland si gaar ah loogu siiyo mucaawimooyinka ee loo yaqaan Somaliland Special Agreement oo ah hab gaar ah oo ay deeq-bixiyaashu sameeyeen 2013 xildhibaan Cumar Axmed Suleymaan Cumar Sanweyne gudoomiyaha guddi-hoosaadka dhaqaalaha golaha wakiilada Somaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa uu ku leeyahay aqalka golaha wakiilada ayaa waxa uu ka hadlay go'aankaasi ka soo yeedhay dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo si adagna u taageeray go'aanka ay ka qaateen beesha caalamka iyo dhammaan cidda bixisa deeqaha gaarka ah ee la siiyo Somaliland. dowladda Soomaaliya oo mar walba si walba dagaal inuu la jirta hadaynu nahay Somaliland hadday tahay xagga hawada iyo hadday tahay xagga badda iyo hadday tahay xagga berigaba inagu marnaba ma nidhaahno Soomaaliya yaan wax la siin ama Soomaaliya ha xumaato bilcaks mar walba waa u ducaynaa wanaagoodana waynu ka hadalnaa saaka halkan waxaan ku hayaa aan doonayaa inay ilaa sheer garaysaan warqad baa jirta ay qoreen oo dowladda ama xukuumadda federaalka ay u qortay deeq-bixiyaasha ay leedahay Somaliland wixii deeqahe la siin jiray anaga hanoo soo mariyo waxaa jiray wax la oran jiray special arrangement oo 2013 la sameeyo la cusboonaysiiyay wuu jiray marka warqad bay u qoreen ay leeyihiin nimanka deeqda bixiyo wixii aad Somaliland siinaysan anaga noo soo mariyo si ay magaranaysaa inta yar horumarinta aynu helana ay seekeen hortaagaan bay doonayeen ama waa corruption baa meesha ka jiro inta baa u qaataan ba iyagu alxamdulillah deeq-bixiyaashii way ku diideen arrinka oo waxay yiraahdeen special arrangement-ka ama wada shaqaynta goonida ah ee aan Somaliland la leenahay joojin mayn ayay yiraahdeen sidaas ayay ugu jawaabeen bisha 13keedii bishaynu ku jirro halkana waxaan ku hayaa warqadii ay ugu jawaabeen deeq-bixiyaashu kooyana waa linsiin doonaa sawirkooduna waa ka haddii ay ka dhigo Cabdishakuur Haybe Kalsan TV magaalada Hargeysa.